والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه، أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين. walaalayaal khudbadeenu waxay ku saabsan tahay ibtilaa iyo imtixaan rabbi subxaanahu wa tacaala uu ku doortay nebi ambiyadiisa ka mid ah, bal wa khaliilu raxmaan ibraahiima calayhi assalaam abal ambiyaa ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala ibtileeyey oo imtixaanay. qisadiisu waa dheer tahay, laakiin shaahidka aynu doonayno inaynu qisadiisa ka qaadanno ayaynu insha allahu tacaala dulmarayn. rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu ka warramay nebi ibraahim in qoomkiisii ku dhaga adkaadeen oo u tashadeen oo ay u shideen dab weyn oo ay markaa waxaweye bilo iyo sanawaad ururinayeen, ilaa la sheego la tilmaamo in shimbirta dulmarta dabkaasi ay ku soo dhacaysay holaca baxaya awgii. waxaa loogu talagalay nebi ibraahim calayhi salaam in dabkaa lagu tuuro. waxaa loogu qoomoonayaana ee markaa loogu ciilcunsan yahayna waa inuu tawxiidka rabbi subxaanahu wa tacaala qoomkiisa ugu yeedhay. cidda ugu horraysay dabkaa la doonaysa waa aabihii aazara. meesha tawxiid baa yaalla iyo caqiido, nasab ma yaallo, xidhiidh kalena ma yaallo. waxaana isku haystaa mar hadday tahay tawxiidkii rabbi subxaanahu wa tacaala in la kala yeelo oo diinkiisa loo qaalis yeelo, waa ka baxayaan muxuu ahaaye jeclaysigii iyo waladkii iyo waalidkii waa ka baxayaan. dabkaas ayaa loogu tashado rabbi subxaanahu wa tacaala waa ka badbaadiyey. qulnaa yaa naaru kunii bardan wasalaaman calaa ibraahim wa araaduu bihi kaydan fajacalnaahum alakhsariin. kuwaas ayuu waxaa laga yeelay qowmkiisii. nebi ibraahim markuu ogaaday inay dhaga adeegeen ayuu ogeysiiyey innii daahibun ilaa rabbii sayahdiin. anigu waan hijroonayaa, waan idinka tegayaa. ardul ciraaq buu ka yimi, wuxuu yimi xijaaz aljaziira alcarabiya usoo hijrooday. waa ka yimi dhulkii lagu caasiyey ee lagaga dhaga adeegay, ehelkii iyo dadku yaqaanay iyo qoysaskiisiiba waa ka yimi. wuxuu soo kaxaystay keliya haajara oo ah xaaskiisii. rabbi subxaanahu wa tacaala waa ku kalsoonaayo wuxuu tilmaamaya in rabbi subxaanahu wa tacaala uu hanuuninay. nebi ibraahim waa weynaaday, da-buu gaadhay, caruurna ma laha, isagii xaaskiisa un weeyaan. dadku yaqaanay iyo ehelkiisiina waa ka yimi. garbay noqotay inuu ilaahay weydiisto in rabbi subxaanahu wa tacaala walad saalixa uu siiyo. rabbi hablii min alsaalixiin. ilaahay buu weydiisanaya isagoo da gaadhay oo xaaskiisu aanay dhalaynin, ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala weydiisanayaa inuu rabbi subxaanahu wa tacaala walad saalixa siiyo. walad saalixa oo isagana anfaca adduunyada, aakhirana tawxiidkii uu ku baaqayo kusii baaqa isagana u duceeya ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala ka baryayaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka ajiibay. bishaaradii baa u timi oo rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu weydiistay waa loo libin laabay. wuxuu ilaahay ugu bishaareeyey gulaam xaliim ah, wiil xaliim ah, dulqaad badan oo dhaqan wanaagsan oo sifaadkiisu ay yihiin sifaad quruxsan ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala ugu bishaareeyey. nebi ismaaciil baa loogu bishaareeyey. nebi ismaaciil waa koray, waa weynaaday, gaashaanqaad buu noqday. waa xilliga uu qofku ugu jecel yahay ubadkiisa. waa xilli mashaqadiisii iyo dhibkiisii ay sii jeesatay, manfacadiisii iyo inuu waalidkii anfaco oo ummadda kale anfacana ay soo qaabishay. xoog buu yeeshay. aabihii buu shaqada la galay oo caawiyey. falamaa balaga macahu sacd, waa markii uu markaa waxawey gaashaanqaadku noqday oo xoogga yeeshay. rabbi subxaanahu wa tacaala waa ibtileeyey, waa imtixaan. inanka keli ah ee uu dhalay ee isagoo da-wan ilaahay siiyey ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala ku imtixaanay, ayaa lagu ibtileeyey. sida uu rabbi subxaanahu wa tacaala u jecel yahay iyo siduu ubadkaa iyo wiilkaa u jecel yahay ayaa markaa waxa weeye lagu ibtileeyey. kee buu horumarinaya? ma wiilkuu ka doorbidayaa jacaylka rabbi iyo inuu amarka rabbi subxaanahu wa tacaala fuliyo, mise amarka rabbi buu subxaanahu wa tacaala fulinaya? innii araa fi lmanaami annii adbaxuk fandur maada tara. waxaa riyada igu tusay oo laygu waxyooday anigoo ku gowracaya ee ka talabixi ismaaciil. wuxuu u weydiinayaa ismaaciil, ma aha in jawaabta ismaaciil lagu dhisayo xukunka ee halkii uu nabi ibraahim inankiisa ismaaciil ah seefta iyo waran kula soo boodi lahaa ee uu gowrici lahaa ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala nabi ibraahim calayhi salaam
kala tashanaya inankiisa u sheegaya ilaahay baa ina faray waxugu rabbi taa iyadaa ka tala bixi oo ka warran buu nabi ibraahim leeyay ismaaciil wuxuu ku koray guri tawxiidiyaado guri abal ambiyaa uu ka odan yahay gurigii nabi ibraahim uu ku koray tawxiidku qanshuhu shooga yaqiintiisuna waa kaamilo waa buure yaa abati ifcal maa tu'mar aabbow wixii lagu fahaysamee adiga iyo anigu toona khiyaar ma lihi doorasho ma lihi wamaa kaana limu'minin walaa limu'mina idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amri وما أنا يسكنان روح مؤمنة iyo qof dumar mu'minada hadii ilaahay qaab u xukumo in khiyaar iyo doorasho ka yeeshaan ifcal ma tu'mar sama wixii lagu faray waa hoggaansan yahay ismaaciil nabi ibraahimna waa hoggaansan waxa baxaysa waa naftiisii nabi ibraahimna wuxuu gowracayaa waa wiilkii kali ah ee isagoo da'weyn oo marka waxa wada dhabarkii soo gotay oo lafihii jilcaan oo qarkii cadaaday la siiyey ee rabbi subxaanahu wa tacaala ka baryay umad markaasuu leeyahay da'weyni baa lagu siiyey haddana gowrac baa leeyihi marnaba kamuu laba goglay nabi ibraahim calayhi salaam kamuu leexleexan ma aanu dib dhigin ma aanu sugin inta xukunka la nasaxayo inta war dambe ilaahay uga imanayo si toosa buu nabi ismaaciil u abbaaray oo yidhi innii ra'aytu fi lmanaami annii adbaxuk fandur maada tara waxaa laga waxyooday oo lay faray oo rabbi subxaanahu wa tacaala igu waxyooday in marka waxa weeye aan ku gowrace ee ka tali nabi ismaaciil waxa uu jawaabay yaa abati ifcal maa tu'mar satajidunii in shaa allahu min assaabiriin waxaan ka mid ahaanayaa haddii eebbahay idmo kuwa sabra ee ku sabra inay fuliyaan xukunka rabbi subxaanahu wa tacaala ee ku sabra inay daacaadka ilaahay gudashadeeda ku sabraan inay macaasida ka sabraan inay fulinta axkaamta ilaahay iyaga lagu fulinayo ay ku sabraan satajidunii in shaa allahu min assaabiriin waa cibaado aada u qiimo badan inuu qofku istislaam la yimaado oo isdhiibo oo isu dhiibo xukunka rabbi subxaanahu wa tacaala macnaha islaamnimadu leedahay taayada ah weeyaan inaad ilaahay u hoggaansanto oo istislaam la timaado oo rabbi subxaanahu wa tacaala xaggiisa xukunkaaga iyo arrinkaaga oo dhan u jeediso ayaa lagaga baahan yahay wixii xagga rabbi subxaanahu wa tacaala ka yimaadana aad ku joogsato ama aanad u qiil baadhin ee aad rabbi subxaanahu wa tacaala wixii lagaga sheego aad madaxa ku qaadato أحكام رب سبحانه وتعالى وفق قوة بيانين وكحر وليسته ودقل لك وحوى يهود لدها إماها دقل مسلمين إلى ذلك نبي إسماعيل الحلية ستجدني إن شاء الله من الصابرين قوة تصبر حكمك ربك آيات لك وحوى أنت بالآن فلما أسلم وتله للجبين ملك نبي إبراهيم عليه السلام وإسماعيل طبعا كقلك وبقي بنبي إسماعيل سيد عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاهما أسور إنيه وحو نبي إسماعيل إبراهيم كويري أبا وجه عيد إيجل وجه عيد إيموبال لبدك لنا إيحب سيانت وجه يهوها المركة وحوالي يجون يجمعي وأنا أمرك إلهي وقوم مموني وأنا يقين تادي يا باعدي أكتب في أنا المركة وحوالي وقوم مموني لكن زكاة بحين يسيء إيه زكاة يحواليه لغا قاضي حديثة سقبصر لها يحصى منها لتعسقبصر لها يحصى منها وهل كي قد بيسي أمكن رب سبحانه وتعالى أوضيعه نفتس بحين إياه محوب بحين يا رب سبحانه وتعالى أن تسلفرنا إياه نبي إبراهيم نعين كيسي وقورعيه wuxuu gowracayaa waa amarkii ilaahay inuu fuliyo waa daaco ilaahay la adeeco halkii ku sarraysay weeyaan taa iyada ah waa laxadaad iyo xilli u baahan yahay qofka iimaankiisu inaanu gelgelan nabi ibraahimna taa iyada ah buu ku sifaysnaayo ismaaciilba wejiga ciidday gelin labadiglada iyo xaysi gowracay inuu fududaado oo amarka ilaahay aynu sii dhibiya u fulino فلما أسلم وتله للجبين مركو سيدي إلي يدوان في عيدة وبقي ولو دولوك على سكيتي إلى فيصلي هي من دبي أي فرج إلهي مركو حالته مدرتها أنا أغفلني إن
maanta oo kale aanay kaa baaqanaynin ayaa ilaahay farajkiisu imanaya. waman yattaqi illaha yajcal lahu furqaana, qofka ilaahay ka cabsada ilaahay wuu u meelbixiyaa, maqraj ba rabbi subxaanahu watacaala u sameeya. waxa kornaaga saaran keliya waxaa weeye inaad rabbi subxaanahu watacaala dariiqiisa ku toosnaato, amarkiisana qaadato. faradka ilaahay markaasu imanaya, faradka ilaahay markaasu imanaya. wanaadaynaahu ya ibraahim, waa loo baaqay, faradkii baa u dhawaaqaya. rabbi subxaanahu watacaala nabi ibraahim u waxyooday oo leh qad sadaqta ru'ya, waad ka dhabaysay waxyigii, riyadii lagu tusay ee lagugu waxyooday inaad inankaaga gowracdo waad ka dhabaysay. ilaahay baahi uma qabo dhiigga ismaaciil ee waxaa lagu imtixaanaya waa nebi ibraahim, waa nebi ibraahim, si aan qalbigiisa aanay u wada gelin ama aanay ugu loolamin jacaylka ilaahay iyo jacaylka ismaaciil, jacaylka ilaahay iyo jacaylka ismaaciil si aanay ugu loolamin baa ibtilaagan iyo imtixaankana u yimid. markaas rabbi subxaanahu watacaala yidhi inankaaga gowrac si loo khaalis yeelo qalbigiisii. waayo nebi ismaaciil rabbi subxaanahu watacaala wuxuu ku ammaanay biqalbin saliim, qalbi saliim ah. muxuu saliim ka yahay? shirki oo dhan buu saliim ka yahay. in ilaahay cibaadada cid kale lala wadaajiyo ama jacaylka ilaahay jacayl kale lala berbergeliyo oo dhan buu saliim ka yahay. taana waxaa caddayn waa ibtilaagii rabbi subxaanahu watacaala uu ibtileeyey nabi ibraahim calayhi salaam. walaalayaal, qisada ayada ah ee farajkaasi u yimid ee lagu furtay bidibxin cadiim, wan weyn ayaa rabbi subxaanahu watacaala ku furtay. taa iyada ah waa inagana laynoo sharciyeeyey, innagoo markaa waxa weeye sanad kasta qadayna walkaas nebi ismaaciil lagu furtay. sidaasaa rabbi subxaanahu watacaala uu ku doortay nebi ibraahim, sidaasaanu ku noqday khaliil araxmaan, ilaahay kii uu la gaarka noqday. ilaahayna taa iyadaa wuxuu ku tilmaamay oo lagu sifeeyey ina hada lahuwa albalaa'u almubiin, waa imtixaan iyo balaa aanu daran weeye, aanu cad weeye. waxyaalaha aynu ka qaadanayna waxaa ka mid a uguna weyn in rabbi subxaanahu watacaala dariiqiisa iyo axkaamtiisa lagu sabro, laga fuliyo dhib kasta qofka aad ku hayso, inaad naftaada ka marka waxa weeye ay ka go'naato inaad fuliso rabbi subxaanahu watacaala axkaamtiisa aad fuliso, cibaadadiisana aad ku toosnaato oo aana marka waxa weeye naftaada kala jeclaanin axkaamta rabbi subxaanahu watacaala. waaqiceenna maanta sida nafta loo jecel yahay ayaa la ilaawayaa shareecadii iyo diinka rabbi subxaanahu watacaala. oo laga yaabaa inaanu salaada u soo kicin isagoo dhaxan ka baqaya, isagoo ku marmarsoonaya dhaxan baa jirta inaanu waysada usoo kicin baa laga yaaba. sidee uu ilaahay u adeeci lahaa haddii la yidhaahdo naftaada gowrac ama aabbaha ha ku gowraco sida nabi ismaaciil iyo ibraahim calayhi salaam? muxuu samayn lahaa? muxuu yeeli lahaa kaa maanta qabowga ayaa uga salaaddii ilaahay uga tegaya? sida ay nebi ismaaciil waajibka ugu ahayd in la gowraco intii aan la furan ayay waajibka ugu tahay inaad ilaahay u tukato. cudurdaarna malihi, waayo nebi ismaaciil baa cudurdaar yeelan lahaa haddii ay cudurdaar leedahay. baraka allahu lii walakum fi alqur'aani alkariim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات الحكيم. ألا وصلوا وسلموا على نبيكم الأمين الذي أمركم الله بالصلاة والسلام عليه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته. وارض اللهم عن الخلفاء الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أقم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويذل ويهدى فيها أهل معصيتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نسل الدين وخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة.